ninkii Ismaaciil arka ahaa wuxuu yiri markii showga gabadha laga baajinayay Hargeysa soo aniga ma ahan ninkii showga ku qabtay aad u jeedid waxa soo umadahay soo ninkii ka dambeeyay aniga ma waxana aan ku dambaabay طيحنا اسمه يا ربي بني فيديو هذا كهر مالكو كيدصدي وون بو يرااديا $10 بشوغي يكسو غليجتي sidoo kale ninkii heestaas ku soo caanbaxay ana ka dambeeyay labadaas halkaas qafil iyo quful isugu haya oombu marwaan yar snapchat ku soo dhigay abtii soo celiyay isaga khadarkeeyo baasha wal qoraal bal isku tooganayay intuu yar ku soo yar celiyo xii ninkii dayaxaha dameer waa dameero weligood ba fris ma gaaraya alaabta waxa la yiraahdaa abtiga ku dhiiqayso abti waa beere meesha arjid ka gal ninkii sharba boohana wuxuu yiri niyahow iska dhaadhicintu shakhsiyadaada ay ku ilowsiinaysaa in maalin walba qof tartan kula jirtaa wax macnaa ku sameyn maysay birqasabadeed iyo dhagax iyo bud iyo luuq iyo fed wax loo kala garan waayo mid la tiigsaday dayaxna saaxiib buu leeyahay marwaana saaxiib buu leeyahay talo waa kuma ka jalaafada u dhiga annagoo daraamahaasi noo socdo baa ninkii BK ahaayo hees ka soo duubay ninkii nimcaan hilaac ahay birqasabadeed la tiigsaday wuxuu yiri naqo Allah u naxariisto waa heestii marka gabadhaasi ay lahayd oo loo qaaday ay dhimatay sidaas heesta la yiri laguma soo fasixino maanta waa halkeed ku jirtay baa BK isaga soo duubay wuxuu yiri naqo Allah u naxariistee heestana waxay ahayd hees loo dhan yahay shaqadeeda oo fadhigaasi qiiro gaar ah ayuu watay BK waan ku arkaa buu yiri adiga iyo ixtisaam inaad soo kala dhamaateen haysiinta qasqaska soo dhaaf dhagax buu la tiigsada dhagax munkarka meeshii aad kaga jirtay iyo jibiskii iyo waliba bahashii dushta ahayd waraa ninkii nimcaan hilaac maanu ikoobiyay dushta iyo dhugtu waxay kala yihiin iyo buu yiri farataagi wixiiba halkii aad kaga tagtay ama aad kaga kacday ayay ku yaalaane soo fadhiisaniyo hanagaadini iska soo wada baxa anagoo labadaas u jeeda jacayladii naga husbixeen ka war ninkii qaysarahay ninkii hay kala haaba islaamii la sheekaysan jiray kuwiis jiray way iska hoos qaadeenba ninkii hay kala haaba gabadhii qaysar la sheekaysan jiray isku soo duuduubi jiray video la soo duubo qaysqasintu commentiga soo guriyay aan oo yaalbaabada yaxda wax yar ka bacdi wuxuu soo saarayba isagana haykal gabadhii u qabi jiray inkastoo markii dambe la yara fool xumaatay uu ka saaray halkaas ay isku xaluuleen laba xagga isku maqan anoo yaaban oo la hayay oo bahasha si qaraxday baa arkay yarkii islaantii barigii dhihi jirtay way laqay oo ooyay saaytolo maxaa jira siisantu filimkii qaybtii labaad la soo sixraba suxulay maama yeeday lugaha ay qabsatay gabadheeda sariir ka saaran anna waxaan sir Soomaalida ku geyn kari maayo yaamini maayaan sababtoo ah hore sharafteeda lagu ciyaaray haye wasi dhigist oo ooyay kaamiradu ka carray oo hiniyo qosol wax loo kala garan waay anigii baa yaabay ma siisantu waan qaybtii labaad atoriyo ooyay soo baxay gabadheena sariir saaran tahay waa sidee waxay wareer kari saaxagan u wareegay hadana misaninkii hanadaha xalay tobo live soo galo teamkaas oo baaba ka dhigay live-kii ku xigay kiyo buusan baa soo galay oo wada casaana fed iyo haraanti iyo laad qofka markii lagu dhufto ama nabar gaaro meeshu way ku sii jirtay waa meel cas ma dhulka hanada lagu xoqay nabarada tani waa kuwii dhulka iyo gidaarada la isku xoq jiray waa sidee ya ما أنا قلنا وايسا alaabta tan waa noocma meeshaan soo buuray adoo mid kale mar la iska ka xirayo mar la iska ka buubuuso ma qabarka daarood baataa daraamaha noo kala dhigdhiga qayb noo soo daaya ma isbuuc mid ha socdo isbuuc kale mid ku xijiye wixii ba hal mar baad iyo xawiif dhig wax ka soo siinaysaa wasti hada wareerin ana maska xeebo qanaga furinada yaanu cararna marba mid baan u cararaynaa miya oo soo dhageysanayna
suga noo kala kaadiya ninkii dayaxaha iyo adkiyaashiyaha soo kala dhamaadaan kadib baan kuwa kale dhageysanaynayo marba mid aadaynay